daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaa idin wadaa taxane cusub ee lagu magacaabo Make May Harti Ismail balse inta aad bilaabin janaalka subscribe saar sidoo kalena muuqaalka like saar qof walba wuxuu rabaa inuu noqdo amiir si uu u helo amiirada noloshiisa laakiin gabadha halkan joogta weligeed waxay ku jirtaa riyo magaceedu waa Wemi wiil caan ah oo lagu waashay ayaa ka soo degay baabuur Porsche ah taageerayaal waalan ayaana ku soo orday laakiin isagu ma ahayn ninkaas muse wuxuu ahaa kaliya qaf ag taagan baabuurka wiilka dhabta ah ee lagu waashay waa Yenlu kaas oo si caadi ah ugu socday xarunta TV-ga isagoo aan ka baqayn taageerayaasha waalan kulankii ugu horeeyay ee ay isku arkaan gabadha iyo wiilka wuxuu ka dhacay wiishka laakiin noloshu mar walba ma aha mid ubax iyo udgoon ah iyadoo daahday awgeed wiilka ayaa ka xirtay albaabka wiishka inkastoo ay baryeysay markii ay codsatay barnaamij istaafsi arday gabadhu waxay beddeshay magaceeda oo noqotay Janhan qadar yaab leh intii lagu guda jiray duubista barnaamijka Yenlu Wemi waxaa khasab ku noqotay inay noqoto daawade sababtoo ah shaarkii Wemi waxaa ka maqnaa badankiisa Yenlu si hoose ayuu u tilmaamay arrinta balse Wemi waxay u qaadatay inuu yahay nin xun waxayna ku dhufatay dharbaaxo markii taageerayaasha waaweyn ee dumarka ahi ay arkeen wiilka caanka ah oo si toos ah TV-ga loogu hor dharbaaxay waxay u ordeen inay helaan Janhan niyad jabkeedu intaas kuma ekaan waxayna mar kale ku kulmeen iyadoo shaqo yar ka shaqaynaysa iyadoo aan feejignayn Wemi waxay jebisay hadiyad uu Yenlu u iibiyey hooyadii hadiyadaas aad bay qaali u ahayd waxay ku talisay inay u bixiso qayb bil kasta ma uu ogolaan doonaa wiilka caanka ahi dabcan maya si kastaba ha ahaatee gabadhu weli rajo yar bay lahayd xilli uu aabe iyo hooyadii ku cadaadiyeen inuu soo helo gabar saaxiib la noqoto Yenlu wuxuu u soo jeediyey inay noqoto saaxiibtiis been abuurka ah si ay ula macaamisho hooyadiis xaflad ayaa la qabtay halkaas Wemi waxay la kulantay saaxiibtii yaraanta ee Yenlu gabadh la yiraahdo Yuanxing qof walba wuxuu rabay inuu wiilka caanka ahi qoobka ciyaarka ku furo saaxiibtiisii hore balse wiilka caanka ahi wuxuu doortay saaxiibtiisa been abuurka ah inuu lamaane kula noqdo way iska cadahay sida noqon karo wejiga saaxiibtii hore waxaa muuqata in wiilka caanka ahi aad ugu qancay lamaanihiisa qoobka ciyaarka markii bandhiga dhammaaday Yenlu wuxuu saaxiibtiisa u geeyey hooyadiis dhabta ah si lama filaan ah gabadhan hadalka badani waxay isticmaashay magaca saaxiibteed ugu fiican kaas oo ahaa badbaadiyaheedii hore Luyo hooyada Yenlu aad bay ugu faraxday caqliga iyo xariifnimada weyi sidaas darteed waxay canaanatay wiilkeeda oo ku tiri maxaad waqti dheer ugu qaadatay inaad saaxiibtaada ila timaado farxad weyn ayay u ahayd hooyo maalinteeda dhalashada waxayna martida oo dhan u soo bandhigtay saaxiibta wiilkeeda gabadhu sida caadiga ah marka ay aragto cunto macaan ma iska celin karto gabadhan sidoo kale sidaas ayay ahayd aadna way ugu mahadnaqday markay maqashay caloosha wiilka caanka ah oo garaacmaysa waxay u keentay cunto laakiin dab ahaantii way adag tahay in la raali geliyo wiilka caanka ah Yenlu isla markiiba gacanta ayuu ruxay isagoo way iska riixay laakiin waxa qasab ahayd in dhacdo Yenlu ayaa qabsaday gacanta Wemi si aysan u dhicin markaas ayaa si kama ah dhunkasho u dhacday iyadoo xishoonaysa ayay wejigeeda dhinac u rogtay Yenlu wuxuu kaliya ku qanci karay inuu yiraahdo nacnaca dhareerka leh aad buu u macaan yahay intay labadooduba ku jireen xaalad xishood iyo murugo isku dhex jirta Yuanxing ayaa timid iyadoo koob khamri ah siinaysa si ay u dejiso waxayna ku tiri wuxuu ii la mid yahay qof aan hore u garanayay dabcan anagu isla markiiba waan diidnay Yuanxing waxay u jeesatay Yenlu oo ku tiri ha keenin gabar been abuur ah oo aad ka dhigato saaxiib si aad hooyada ugu qanciso xitaa haddii ay ku degdegayso laakiin dabeecadiisa qabow iyo madax adeyga awgeed wiilka caanka ahi wuxuu ku jawaabay ma u malaynaysaa inaad igu fahanta dabadeed horay ayuu ugu socday wuxuuna isku duubay gabadha isagoo diyaar u ahaa inay meel kale aadaan markii ay meeshii kale u guureen waxay ku noqdeen naftooda dhabta ah waxayna bilaabeen dood iyo hadal muran ah si kedis ah nin xiran jaakad casaan ah ayaa soo muuqday gacantana saaray garabka Yenlu codkiisa ayaa ahaa mid la mid ah cod dumar taas oo maskaxda gelisay fikir ah in uu yahay lamaane qarsoon oo Yenlu leeyahay laakiin markii ninku isu soo bandhigay isagoo leh magaciisu waa Muse iskuna diyaariyey inuu salaamo Yenlu ayaa si dhaqso ah u joojiyey wuxuuna ku yiri inuu meel kale aado kadib markii biyihii qabo wejiga lagu shubay Yuanxing waxay aaday hooyada Yenlu iyadoo ku dooday in aysan jeclayn Yenlu waxay xitaa soo bandhigtay muuqaalka oo Yenlu ku dharbaaxaysa TV-ga hortiisa laakiin hooyadu ma ahayn mid xanaaqda taa bedelkeed aad ayay ugu faraxday waxayna tiri gabadhan waa mid xiiso leh waxayna i xusuusisaa anigii yaraantayda waana mid awood u leh inay maamusho Yenlu Yuanxing hadal la'aan bay noqotay si xishood leh ayayna uga tagtay laakiin si ay uga hubiso dareenka wiilkeeda waxay daba dhigtay Yenlu ina adeertiis inay daba socdo Wemi oo keligeed wax cunaysa ina adeertii Yenlu waxay ku shubtay khamri iyadoo damacsan inay ku qasabto inay runta sheegto in yar gudaheed labadooduba way sakhraameen waxayna bilaabeen sheeg ina adeertii waxay bilowday inay aflagaadayso walaalkeed waxaana halkaas soo maray Yenlu oo hadalkooda maqlay markuu sidaas arkay isla markiiba tiri waxay sakhraansan tahay dib labadooduba waxay geeyeen ina adeertii hotel si ay u nasto ku dhawaad ayay ku dhacday dhulka markii ay simbiri raxday balse Yenlu si dhaqso ah ayuu gacantiisa ugu fidiyey oo qabtay markuu indhaha ku eegay indha wareerka Wemi Yenlu muddo yar buu yaabay markaas ayay u soo dhawaatay waxay farta ugu fiiqday Yenlu waxayna tiri iyada kali ah ayaa og labadooda sirtooda sakhraanimada darteed Wemi waxay jiidatay tayga markaas ayay gudaha soo gashay
hooyada Yinlu oo aragtay xaaladda laakiin iska dhigtay inaanay waxba arkin kadibna way baxday Wei iyadoo gariiraysa ayay istaagtay waxayna ka raali gelisay Yinlu kadibna iyaduna way ka tagtay markay guriga ku soo laabanaysay kursi ka mid ah baska ayay ku fadhiisatay iyadoo xidhan dhar qaali ah waxayna ka fikiraysay hawshii ay maanta soo martay mana iloobin in Yinlu uu kaydsaday macluumaadkeeda xiriirka iyo inuu ku qasbay inay bixiso waxay aaday saaxiibteed ugu dhow waxayna uga mahadcelisay inay ka caawisay daryeelida walaasheed Zhang Han labadooduba way sheekaysteen waxayna ka wada hadleen maalinta Wei iyo mustaqbalkeeda kadib Wei waxay sii wadatay inay iska dhigto Zhang Han waxayna ku laabatay qolkii ardayda laakiin markay qolkii gashay saaxiibtii walaasheed ayaa caro u muujisay sababtoo ah waxay dharbaaxday qafka ee taageerto subaxdii dambe waxay aaday fasalka daraasadaha bulshada ee ku-xigeenka maamulaha Yanlu iyo Yuansing labaduba waxay ku jireen isla fasalka markii casharka bilowday macallinku wuxuu weydiiyey ardayda inay laba iskugu biiraan qof walba wuxuu rabay inuu la jiro Yanlu laakiin markii macallinku ku yiri Yanlu inuu doorto lamaane dhowr ilbiriqsi kadib ayuu doortay waxay noqotay markii macallinku ugu yeeray Wei magaceeda Zhang Han in Yanlu ogaaday in la khiyaameeyey markii magaceeda beenta ah la helay Wei waxay isku dayday inay doodo taas oo aad uga caraysiisay Yanlu wuxuu xitaa si taxadar leh u soo qaatay buug si uu u hubiyo magaca Wei muddo kadib oo ay ku jahawareertay waxa ay baranayso markii macallinku ugu yeeray Wei inay ka jawaabto su'aal uu Yuanshin weydiisay Wei ma aysan awoodin inay ka jawaabto xitaa ma aysan garanayn waxa su'aashu ahayd laakiin iyadoo maskax degdeg leh Wei waxay ku guulaysatay inay khiyaamayso Yinlu si uu isaga uga jawaabo su'aasha iyada bedelkeeda inkasta oo uu aad u xanaaqay oo uu diiday haddana iyadoo ku adkaysatay ugu dambayn waa uu ka jawaabay ugu dambayn Wei waxay isku dayday inay ka raali geliso Yanlu laakiin si lama filaan ah ayay dhibaato uga abuurtay fasalka markii ay cuntada aadeen waxay la kulantay wiil la yiraahdo Gio kaas oo rabay inuu subaxdii la fadhiisto oo wax la cuno wuxuu u sheegay Wei sababta ay isaga uga fogaanayso Wei iyadoo jahwareersan oo aan garanayn waxa la yiraahdo way diiday waxayna tiri subaxdii hore waan ka daahay fasalka taasna waxay ahayd sababtan sidaas darteed Ju isla markiiba farxad ayuu dareemay mar kale wuxuuna ku casuumay inay maktabada ku wada bartaan Muse iyo Seu waxay ku mashquulsanayeen ka sheekaynta Luyo markii ay hadal dheer yeesheen waxay bilaabeen inay ka shakiyaan in Luyo uusan wax ka baranayn kambaska weyn balse uu yahay ardayga quruxda badan ee ka tirsan waaxda naqshadaynta dharka ee kambaska laanta ah inta ay sii ku canaananayso Wei inay shalay la socotay Yinlu haddana maanta la fadhido wiil kale oo yar ayuu Yinlu soo muuqday oo la fadhiistay markii ay sidaas aragtay Seiwan waxay ugu tagtay Wei iyadoo ugu yeertay Luyo taas oo aad uga nixisay Wei isla waqtigaas gadaashooda Yinlu wuxuu u sharxay Muse in la khiyaamay Wei si dhaqso ah ayay sii uga soo saartay banaanka waxayna u sheegtay in Yinlu uu rabay inuu ka ilaaliyo ardayda dumar ah ee waalan ee iskuulka taas darteedna ay isticmaaleen magacyo been ah iyo xiriir qarsoodi ah si lama filaan ah Siwan way rumaysatay hadalka Wei markaas kadib Wei waxay si degdeg ah ugu ammaantay Siwan inay tahay qof caqli badan kadibna way baxday markuu xaqiiqda oo dhan ogaaday Muse sidoo kale wuxuu ku taliyay Yanlu inuu si dhaqso ah u xalliyo arrintan laakiin Yinlu wuxuu ku jawaabay inuusan u ogolaan doonin waxyaabaha inay ka baxaan gacantiisa markii ay sidaas aragtay Siwan waxay telefoon ugu sheegtay wax walba oo Wei u sheegtay intii ay Wei ku wareegaysay harada Yinlu ayaa u soo diray fariin isagoo rabay inay kulmaan markaas kadib labadooduba waxay isku arkeen goobta shaqada ee Wei halkaas ayay ku heshiiyeen 3 shardi oo ku saabsan heshiiskooda maalintii xigtay Wei iyo Ju waxay u tageen maktabada sidii ay hore u qorsheeyeen Wei ayaa istaagtay si ay uga caawiso Jiu buugaagta qaanadaha lagu habeeyo tani waxay ka dhigtay Jiu inuu mar kale ka shakiyo sababtoo ah wuxuu u maleeyay in Zhang Han hore aysan u jeclayn inay sidan u shaqayso Wei si dhaqso ah ayay u sharaxday waxayna tiri waxaan rabaa inaan shaqo ka dalbado maktabada inta ay shaqaynaysay si kama ah ayay Wei u dejisay buug Jiu ayaa arkay wuxuuna yimid si uu u hubiyo xaaladeeda laakiin si nasiib ah Yinlu ayaa gadaashooda ka joogay oo wax walba arkay wuxuuna yiri Wei waa qof si fudud ula qabsada shaqo walba Yinlu markaas wuxuu weydiistay Wei inay u kaxayso qaybta amaahda si uu u eego nidaamka buuga halkaas ayuu ula kac ahaan uga dhigay xaalad adag Wei isagoo ku amraya inay qabato waxa uu rabo markii ay isku jiidayeen buuga waxay galeen xaalad xishood leh oo isku dhaca si lama filaan ah saaxiibteed Luyo ayaa soo wacday oo ku tiri inay u timaado fasalka si loogu yeero roll call Wei si dhaqso ah ayay ugu oroday fasalka waxayna si qarsoodi ah u gashay fasalka balse si lama filaan ah macallinkii ayaa arkay oo ku yiri inay casharka sharaxdo nasiib wanaag tani waxay ahayd maadada ay baranaysay Wei sidaas darteed aad bay ugu fiicnayd oo kaliya xusuusin yar ayay macallinka ka heshay markay guriga ku noqotay Seiwan waxay u sheegtay hooyada Yinlu wax walba waxay u malaysay in hooyadeed ay xanaaqi doonto laakiin taa bedelkeeda aad bay ugu faraxday in wiilkeedu la kulmay gabar ku abuurtay dareen intaa waxaa dheer Seiwan waxay ku ammaantay Yongshan inay tahay arday wanaagsan oo xitaa heshay fursad ay kula tartanto Yanlu tartanka challenge cup hooyadii aad bay u faraxday Seiwan waxay kaloo ku tiri inay casuunto Zhang Han si ay casho ula qaadato oo ay si fiican u barato markuu game la ciyaarayay saaxiibkii si lama filaan ah ayuu u helay wicitaan ka yimid hooyadii markuu maqlay hooyadii oo leh inay casuumi doonto Zhang Han casho toddobaadka
marka dambe gebi ahaanba wuu yaabay oo dareemay inuu gacmo maran yahay maalintii ku xigtay Yinnu mar kale ayuu ku qabtay Weimi iyada oo xayeysiis samaynaysa wuxuuna si toos ah ugu yimid isagoo uga warramaya in ay guriga casho u raacdo Wei si joogto ah ayay u diiday ilaa ay si kama ah gacanta uga dhufatay Yinnu taas oo sababtay inay shaarkii ka jeexdo meel aan caadi ahayn markay shaarkii si lama filaan ah uga jeexday Wei waxay Yinnu u waday dukaan dhar ku yaal suuq Wei waxay ku adkaysatay in muuqaalka quruxda badan ee Yinnu uu yahay kaliya dhar sumad caan ah si uu u caddeeyo inay khaldan tahay Yinnu isla markiiba wuxuu xirtay shaarkii ay iyadu u doortay runtii waa sax qof qurux badan wax kasta way ku qurux badan yihiin ayay ku tiri Wei waxay u jeesatay Yinnu si uu uga caawiyo waxayna ballan ku siisay inay guriga hooyadiis u raaci doonto casho inkasta oo markii hore Yinnu uu ka xishooday haddana goordhow labadooduba way isfahmeen waxayna si fiican u wada shaqeeyeen taasoo keentay in dhar badan la iibiyo mar qura Weimi si kama ah ayay u simbiririxday oo ku dhici lahayd dhulka balse Yinnu ayaa si degdeg ah u qabtay oo soo jiiday labadoodii waxay isha ku dhaceen weliba si xishood leh kadib dhar badan ayaa la iibiyey macaamiishuna waxay ku ammaaneen inay yihiin lamaane qurux badan dhanka kale Jiyo keligiis ayuu fadhiyey isagoo xisaabinaya wuxuu soo xisaabiyey in fursadda xiriirkiisa iyo Jianhan uu ku burburo ay korodhay 10% runtii wuxuu ahaa arday dadaal badan kaasoo xisaabin kara wax walba markii shaqadu dhamaatay Weimi iyo Yinnu waxay ku wareegeen suuq si ay cunto u iibsadaan markay gaareen teendo lagu sameeyo cuntada stinky tofu Yinnu markiiba wuu ka cabsaday oo wuu iska fogeeyey si kastaba haddana wuu u bixiyey lacagtii maadaama mobilka Wei uu bateri ka dhamaaday taasina waxay keentay in milkiilaha teendada uu u maleeyo inay lamaane yihiin Wei si xishood leh ayay u diiday markaas ayay labadooduba ka tageen goobta waxay u muuqatay in Yinnu oo ah Wei odan ah uu ka bartay nolol kale qaar ka mid ahna ay u yihiin kuwa cusub xitaa wuu kaftamay isagoo yiri Wei way ku faraxday markay cunaysay stinky tofu Wei waxay ku sharaxday inuu mar walba ku kaftamo muuqaalo kala duwan taas oo ahayd sababta ay wax cusub u jeceshahay markaas kadib Wei waxay aragtay board sawir qaadasho ah oo waxay ugu yeertay Yinnu inay sawiro wada galaan labadooduba si fiican ayay u madadaaleen ugu dambeyntiina Wei waxay siisay sawirka inkasta oo uu wejigiisa ka muujiyey inuu ka caraysan yahay haddana jeebka ayuu gashaday wuxuuna kaloo sheegay inuu guriga geyn doono maadaama ay fiid tahay laakiin Wei way diiday waxayna ku noqotay baska markii Yinnu uu istaagay iftiinka casaanka wuxuu arkay wejiga farxadda leh ee Wei taasina waxay keentay inuu dhoola cadeeyo ma suurtagalba in uu dareen yar u qaaday gabadhan markay ku laabatay qolkeeda Ju ayaa ugu yeeray Wei magaca Jianhan taasina way ka nixisay waxayna keentay inay sawirka ka tuurto markii Ju uu arkay sawiradaas wejigiisa wuxuu noqday mid murugo iyo niyad jab ka muuqato Wei way aragtay waxayna si degdeg ah u tiri nabadgelyo kadibna qolkeeda ayay gashay dhanka kale Yinnu wuxuu xusuustay waqtigii ay wada joogeen suuqa habeenkii wuxuuna mar kale fiiriyey sawirka isagoo dhoola cadeynaya sidaas oo kale waxay ahayd Wei markay dharkeedii habeenkaas laalaadinaysay waxay ka fikiraysay in Yinnu runtii uu ahaa mid aad u soo jiidasho leh markii ay habeenkaas la joogtay laakiin Jiyo oo niyad jab weyn ku dhacay saaxiibkiis ayaa soo baxay oo weydiiyey xaaladda wuxuuna siiyey talooyin taasoo ku caawisay inuu yara fiicnaado subaxdii xigtay Ju wuxuu sugayay Jianhan isagoo sanduuq hadiyad ah sita marka la fiiriyo dhaqankiisa xishoodka leh si cad waa markii ugu horeysay Wei waxay aqbashay hadiyadda waxayna u mahadcelisay Jiyo isla markaana waxay fariin u dirtay Luyo si ay u tusto naqshad cusub markay jidka ku jirto Luyo waxay la kulantay Muse oo isku dayay inuu la kaftamo balse lama filaan Luyo gebi ahaanba way iska indhatirtay inkasta oo wax walba dhaceen Muse weli muu u muuqan mid arrintaas quusaysa Weimi ayaa markaas soo muuqatay iyada oo kula talisay Muse inuu ka fogaado Luyo kadib labada saaxiib waxay u dhaqaaqeen meel kale halkaas oo ay fariisteen si ay u eegaan naqshada Wei Luyo aad bay ugu qanacsaneed naqshada shaadka lamaanaha ee Weimi waxayna sidoo kale dareentay in Wei ay hurdo la'aan ku jirto oo indhaheeda hoostooduna ay madow yihiin sidaas darteed waxay weydiisay sababta markee ogaatay in Weimi had iyo jeer la joogtay Yinnu Luyo waxay xusuusiyey Wei inay taxadarto maadaama Yinnu uu leeyahay taageerayaal waalan oo badan Wei sidoo kale waxay kula talisay Luyo inay ka fogaato Muse si ay u ilaaliso aqoonsigeeda markay fasalka ku socotay Weimi waxaa istaajiyey Yinnu kaasoo u sheegay heerarka ay tahay inay raacdo marka ay hooyadiis la cunayso cunto Wei way baryootantay si uu jilco balse Yinnu si fudud looma dhaqaajin karin wuxuu ku hanjabay heshiiskii ay wada galeen markan Weimi si xoogan ayay uga diiday laakiin markuu sii wadi lahaa hadalka gambaleelka ayaa dhacay waxaana la badbaadiyey Ju mar kale casharka kadib Muse wuxuu isku dayay inuu adeegsado hadiyado iyo ammaano si uu uga helo nambarka Luyo laakiin Weimi si toos ah ayay uga diiday xilligaas Jiyo ayaa soo muuqday isagoo keenay quraac Wei loogu talagalay balse Muse ayaa ku horqabsaday oo cunay markaas ayaa dood ka dhex dhacday labadooda halkaasna Weimi si hoose uga dhuumatay maalintii xigtay isagoo dulqaadkiisu dhammaaday Yinnu wuxuu u diray fariin hanjabaad ah Wei si uu u soo jiito markay sidaas aragtay Weimi oo caraysan waxay u oroday guriga Yinnu markay gaartay Yinnu wuxuu ku hanjabay inuu shaqadeeda ku dacwoon doono taasi waxay qasabtay Wei inay codsato ugu dambeyntiina waxay ku qasbanaatay inay ogolaato inay la cashayso hooyada Yinnu farxad ayuu ku soo bandhigay heshiis rasmi ah oo ay ku jiraan qodobo aanay Weimi ku faraxsanayn si kastaba markay ogaatay in deynta laga cafin doono marka heshiiska la dhammaystiro Weimi way dhoola cadaysay oo way ogolaatay kadib Weimi waxay la kulantay Luyo muddo nus saaca waxay marna canaanatay marna ammaantay Yinnu taasoo Luyo ku dhalisay shaki ah inay jeceshahay
si lama filaan ah wei waxay ka heshay wicitaan siwan oo ku tiri inay hooyada yinnu la kulanto taas ayaa murugo gelisay maadaama ay heshiis saxiixday haddana ay shaqo u bixi doonto markaas ayay si degdeg ah u baxday iyadoo wacaysa yanlu balse wuu ka jawaabi waayey sidaas darteed fariin ayay uga tagtay kadibna waxay la kulantay siwan markay gaartay guriga hooyada yinnu ma aysan joogin siwan ayaa sharaxday inay dib u dhacday sababo taraafik ah darteed waxayna markaas weydiisay xiriirka ka dhexeeya wemi iyo yinnu dhanka kale markuu toosay yinnu wuxuu arkay fariintii wemi uga tagtay wuxuuna si degdeg ah uga soo kacay isagoo argagaxsan intii ay sheekaysanayeen baaskiil si liidata loo waday ayaa ku sigtay inuu ku dhaco siwan laakiin nasiib wanaag waa la jiiday oo waxba ma gaarin nasiib darro waxay si lama filaan ah ugu dhaceen farshaxan yaqaan ka dambeeyey waxayna dhaawaceen sawirkiisii markii ay tan maqashay wii waxay isla markiiba weydiisatay adeerkii inuu oggolaado inay sawirka hagaajiso isla wakhtigaas yinnu ayaa ku soo cararay isagoo raadinaya weymi adeerkii wuxuu ku qancay farshaxankii weymi sawirtay kadib saddexdoodii way is arkeen siwan iyadoo rabta inay boos gaar ah u abuurto labada way ka dhaqaaqday iyadoo tiri waxay soo qaadi doontaa hooyada waxay kaloo u rajaysay wemi iyo yanlu farxad kadibna waxay si xoog ah ugu riixday wemi dhinaca yanlu laakiin si lama filaan ah gacmaha weymi weli rinji ayay ku daadsanayeen taasna waxay sababtay inay si kama ah shaarkii yanlu ugu wasakhayso runtii waa la odhan karaa weymi xiriir gaar ah ayay la leedahay shaadhadhka yanlu si ay khaladkii u saxdo weymi waxay adeegsatay hibadeeda farshaxanimo oo waxay nadiifintii shaadhka u beddeshay qaab loof ah labadooduba mar kale waxay ku lumeen indhaha midba midka kale garaaca wadnahooduna aad ayuu u sareeyey markaas kadib afartooduba waxay ku kulmeen maqaayad si ay casho wada yeeshaan sida la filan karo hooyada yanlu aad ayay ula dhacday weymi waxayna labadeeda carruur u sheegtay in haddii wey mar kale timaado iyagu si gaar ah cunto ugu karin doonaan si aysan wax walba uga sii fogaan wey waxay sharaxday in sababo waxbarasho darteed xiriir jacayl in la sameeyo hadda suurtagal noqon doonin markii ay qolka jiifka ku noqotay wey mar kale waxay la kulantay jiyo kaasoo rabay inuu qirto jacaylkiisa balse wey si dhaqso ah ayay u jartay hadalka waxayna u jeedisay marmarsiiyo guud kadibna waxay gashay gudaha xilligaas shaki weyn ayaa ku abuurmay jiyu wuxuu bilaabay inuu dib u xusuusto dhaqamadii aan caadiga ahayn ee weymi dhanka kale yannu wuxuu guriga fadhiyey isagoo ka fikiraya falalka weymi dhoolacadayna ku jiray markaas muse ayaa soo galay muse markaas ayuu bilaabay inuu la kaftamo yanlu taas oo aad uga caraysiisay wuxuuna ku tuuray qolof moos si lama filaan ah muse ayaa biyo ku daadiyey wuxuuna doonayay inuu ku tirtirto shaadhka cusub ee wey u iibisay yanlu laakiin yinnu si degdeg ah ayuu uga diiday subaxdii xigtay intii ay waxbarashada ku jirtay isagoo arkay wey oo caajis dareemaysa yinnu wuxuu u qoray warqad isagoo weydiinaya xaaladeeda kadibna ku tuuray dhankeeda labadooduba si af ah ayay u isweerareen ilaa fariin ka timid juyu kaasoo ku casuumay weymi xafladiisa dhalashada kadib fasalka yinnu wuxuu u yimid weymi si uu ugu casuumo casho kale oo hooyadiis ee la yeelato maalinta xigta laakiin weymi si cad ayay uga diiday oo way ka tagtay isla markiiba yuan ayaa timid oo ku casuumtay yanlu inuu ka qayb qaato munaasabad xayeysiis ah laakiin si qabow ayuu u diiday maalinta xigtay sidii loo qorsheeyey jiyu wuxuu waday wey wuxuuna geeyey jardiino madadaalo ah si loogu dabaaldego dhalashadiisa si ay uga cararto in lagu qasbo inay raacdo giraanta fariska markuu jiyo cabitaan iibsanayay weymi waxay taleefankeeda ku wacday luyo laakiin dhanka kale luyo waxaa ku xagxaganayay muse kaasoo ku adkaystay inuu qirto jacaylkiisa sidaas darteed way ka jawaabi weysay markii ay aragtay in jawaab laga waayey wey waxay wacday yinnu marka hore yinnu wuxuu xirnaa hiidfonis oo jimicsi ayuu samaynayay sidaas darteed wuu seegay wicitaanka nasiib wanaag markuu jimicsigii dhammeeyey ayuu dib ugu soo wacay markay inay caawimaad weydiisato jiyu ayaa cabitaankii keenay sidaas darteed weymi si dhaqso ah ayay u sheegtay inay la hadlayso guddoomiyaha ardayda si ay run ugu ekaato yinnu isna wuxuu iska dhigay guddoomiyaha wuxuuna la hadlay jiyu markaas jiyu ma qabsan karin wax kale marka laga reebo inuu ku casuumo cabitaanka kadibna guriga geeyo laakiin markuu siinayay cabitaanka si kama ah ayuu biyo u daadiyey markaas ayuu soo qaatay tuwaal si uu u tirtiro laakiin isla wakhtigaas ayuu ogaaday wax aan caadi ahayn wuxuu ku soo gunaanaday in wey aysan ahayn janhan dhab ahaan janhan mar walba waxay xasuusan jirtay dhalashada jiyu taasoo ka duwan maalintaas intaa waxaa dheer dhammaan waxyaabihii kale ee shaki abuurayay ayuu isku geeyey waxa ugu muhiimsan jenhan waxay ku lahayd calaamad qaab dayax ah oo lugteeda ah markay aragtay in aysan sii qarin karin weymi waxay waday jiyu waxayna u geysay meesha jenhan jiiftay markii ay gaareen oo ay arkeen iyada oo sariirta isbitaalka jiifta indhaha jiyu ilmadu ka soo burqadeen isagoo magacaheeda ku dhawaaqaya wii waxay u sheegtay shilka ku dhacay janghan waxayna sharaxday sababta ay ugu qasbanaatay inay iyada ku matasho kadib jiyu wuu ooyey isagoo si hoose ula hadlay xitaa iyadoo weli suuxsan maalintii xigtay muse wuxuu ku sugayay albaabka hortiisa luyo si uu mar kale ula kaftamo laakiin luyo mar walba way diidi jirtay intii jiyu gacmaha jenhan nadiifinayay kalkaalisada ayaa soo gashay si ay u sheegto daawo cusub oo aad faa'iido ugu yeelan doonta jenhan balse qiimaheedu 3 jibaar ka badan yahay kii hadda la bixiyey arrintan ayaa sidoo kale madax xanuun ku dhalisay wey markii uu gaariga la fariistay muse yinnu wuxuu isku dayay inuu la xiriiro weymi markaas ayuu arkay wey oo la socota jiyu bilowgii yinnu wuu deganaa ilaa uu arkay labadooda oo gacmaha ishaysta kadibna si dhaqso ah ayuu uga cararay habeenka wuu diiday inuu ka jawaabo wicitaanada weymi inkasta oo ay si
afka ah ugu tiri Yinlu inuu ku xun yahay fasalka banaankiisa haddana Weimi si qarsoodi ah ayay u tagtay si ay ugu mahadceliso una raali geliso Yinlu intii shaqada kooxdu socotay labadooduba waxay ku jireen dagaal qabow laakiin markay ubaxyo booqanayeen Shinni ayaa u duushay Yinlu wuxuuna si lama filaan ah ugu dhacay Weimi Yinlu ayaa Weimi dib u jiiday markaas ayay labadooduba si rasmi ah u lumiyeen dhunkashadii ugu horeysay Wei oo xishood qabta way carartay kadib sheekada dhunkashadii ugu horeysay ee Yinlu iyo Weimi waxay noqotay mid ardayda oo dhan ka hadlaan si ay u dejiso Weimi waxay tagtay garoonka kubadda koleyga iyadoo la socoto Jiu markii uu wararkaas maqlay Yinlu sidoo kale wuxuu tagay garoonka kadibna wuxuu ciyaaray kubadda koleyga ee naadiga iskuulka ciyaartu waxay u muuqatay mid xooggan saaxiibaduna si xamaasad leh ayay u taageerayeen dhanka kale Siwan ayaa ku qasabtay Wei inay la hadasho maadaama Wei ay dareentay in Siwan dib ku hayso waxay u sheegtay runta oo dhan ee ku saabsan iyada iyo Yanlu kadib walaasheed ayaa sidoo kale canaantay Yanlu arrintan darteed waqtigan Yinlu aad buu u jahawareeray oo wuxuu kaliya u sheegay Siwan inuusan hooyadiis u sheegin markaas ayuu ciyaarta ku soo laabtay laakiin markii uu had iyo jeer ka fikirayay Wei oo runta shaaca ka qaaday niyad jab ayuu galay wuxuuna ka baxay ciyaarta oo socota ka hor inta uusan ka tegin Yinlu wuxuu sameeyay hal gool oo qof walba ku qancay markii ay shaqada maktabadda ku jireen Weimi si kama ah ayay buug u soo riday markii buugga ku dhigi lahaa wejigeeda Yinlu si degdeg ah ayuu u qabtay laakiin nasiib darro buug kale ayaa ku dhacay madaxa Wei si aysan u ceebayn Yinlu codkiisa hoos ayuu u dhigay oo weydiistay Wei inay raacdo Yinlu iyo Weimi waxay sii wadeen muranka ku saabsan heshiiskooda laakiin markuu Yinlu sii xumaaday oo macquul darro noqday Weimi waxay ka tagtay iyada oo dareemaysa inaanay xushmad loo hayn markaas Yuan Qing ayaa timid oo Wei u muujisay muuqaal si xun u eg Wei way la yaabtay balse ma aysan xiisayn kadib waxay sii waday inay ka walwasho shaqadeeda maalmaha xiga Yinlu mar walba si gaar ah ayuu u fiirin jiray Weimi oo samayn jiray astaamo uu u soo dhawaado Wei maalin Yinlu iyo Muse waxay u tageen inay arkaan Luyo ujeedada ugu weyn ee Yinlu waxay ahayd inuu wax ka weydiiyo xaaladda Weimi markuu ogaaday in Weimi dhibaato dhaqaale leedahay Yinlu wuxuu la kulmay Weimi casharka kadib isagoo u soo bandhigay heshiis eena noqoto guri nadiifiya mushaar weyn qaata sidaas darteed Weimi way ogolaatay heshiiska habeenka Wei waxay tagtay guriga Yinlu waxayna bilowday shaqada Wei mar walba si firfircoon ayay u shaqaysay si ay saameyn wanaagsan ugu yeelato Yinlu laakiin nasiib darro markii ugu horeysay ayay ku shaqaynaysay guri hodan ah taasoo ka dhigtay inay wax badan ku cusub yihiin markay qubaysanaysay kulayliyaha biyaha ayaa jabay markaas ayay qaylisay Yinlu wuu maqlay oo u yimid inuu caawiyo laakiin Wei way iska burisay kadib Yinlu wuxuu helay wicitaan ka yimid Muse oo baray siyaabo uu gabdhaha ugu qancin karo Yinlu wuxuu raacay taladiisa qalabka orodka ku aalmiiteeyey laakiin markii uu sugay muddo dheer oo uusan arkin Wei hoos u soo degaysa wuu istaagay oo shaarka iska tuuray oo dhididka iska tirtiray markaas ayay Wei soo baxday oo aragtay wax walba kadib Yinlu isku dayay inuu ka hortago in mashiinka smart ku shidida nalalka damiyo laakiin waa goor dambe wuxuuna ugu dambayntii Weimi ku haystay sariirta markuu jahawareer ku jiray Yinlu si kama ah u qabsaday basbaaska wejigiisa ayuuna ku buufiyey kadib labadooduba waxay u tageen musqusha si ay wejiyadooda u dhaqaan Wei si dhaqso ah ayay raaligelin u codsatay